بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله عبد الرحمن مركليتو يا عشرة هنون أنا وهذا جرني معجزين كقرانك ما أنت وحنك هذه الدون هدي لها يراهدو بلها سنتك ساعدها دقيقتها سكنها إيوه ضوجة وحل يراهدو أما سبيد كلايتك وحيواسن كهذه الدون ما أنت هدي لها يراهدو وعلى غياب أنا استراهدو قرآنك هو استعمال إن ساينس هكذا oo wax noocaas in maskaxdaas soo galaan laga yaabo dadka qaar ay maskaxdooda soo galaan waxaan leeyahay dadkaas aan leeyahay saaxiibadeeya macnaha waxa la joogaa waqtigii ay dadka noocaas u fikiraan tartiib u hadli lahaayeen runtii xaqiiqadii ayaa meeshan taala xaqiiqaha meeshan taala haddii aad la yaabteen ama aad aragteen in culamo reer galbeed ah ama saynisyahanno reer galbeed ah oo waqtiga xisaabinaya oo kalandarka kala rogrogaya oo sanadba nuuc u baxsha oo sidaas u roga oo isku khilaafa oo marba bedela oo saacadaha yareeyo saacadaha kordhiya oo samooyinka iyo maxayat jamaadaadkan waaweyn ugu wareegsan waxba noocaas xisaabiyo ka sheekeeya waxaad la socotaa oo halkan maanta kugu haya hadii ilaahay yiraahdo wax xaqiiqo ah ama xaqiiqo ah 17 aayadood oo quraanka kariimka kamid ah ayaa Allah subhanahu jalla wa ala wuxuu soo dejiyay quraanka weyn ay kamid yihiin 17 aayadood kaliya 6236 aayadood ayuu quraanku ka kooban yahay 17 aayadood oo kaliya oo kamid ah intaas ayaa ilaahay ku soo idleeyay totally waxaas bani aadamku ku daalay waxa bani aadamku kumaankum ka sano ay ku mashquulsanaayeen oo kalandarka maalinba la bedelo oo saacadda maalin bedelo xagga loo rogo xagga loo jeedsho halkaanay ku idil yihiin laakiin nasiib darro ummadda islaamka masiiba haysata wallahi masiibaan haysata dar islaamnahay waxa way dhaxal ayaan haysanaa dhaxal ma guuraana ayaan haysanaa laakiin uma jeedno ma naqaano ma fahmi karno uma soo jeedno waxaan ka jeclaysanay waa ka hijroonay quraankii total waa ka hijroonay waxaan ka jeclaysanay sheeko iyo maxay maaweelo iyo waxyaabo noocaasa ayaan ka jeclaysanay meeshaana waxaa taala kalaamu rabbul caalamiin ayaa yaala subxaanallahi alcadiim inna lillahi wa inna ilayhi meeshaan la soco wax la yaab lan ku tusaa maanta ilaahay yiraahday casharkan horaan u sameeyay mid asagoo kale taa laakiin kan uu ka sii faahfaahsan yahay hadii ilaahay yiraahdo maalin walba waxa iga soo kordhay cilmiyo cusub iga soo kordhaan inaan soo gudbiyaan jeclaysta arrintaas hadii ilaahay yiraahdo waa cilmi runtii ummadda islaamka ay u baahan tahay weeyaan meeshaan waxa ku yaala bil iyo bilo iyo bil macnaa bil waa kali hal bil bilana waa bilo allah subhanahu jalla wa ala quraanka ku sheegaya suurada سجالات القرآن كآيات صدن اللي حربوه كورنيا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي ربي أورنيا سبحانه جل وعلا آيات اسمر كان أخريه إلا عرور المديدي معناها ما لا أحد جرتي ما شيطان ما قرنيه لكن ربي جل سبحانه جل وعلا وحبذا أيوة فهم سيا الحمد لله رب العالمين يا أيضا كلا القرآن كجرا الله مذا وصوبنا قدونا وقت جد هدي الله يرهد أيضا وحيلاد هاي بلوه إلهي أكتيس وحويا لبا إيو طبعا بلاد ويان كتابك إلهي سلاس الصغية ما أنت إلهي سموينك أرلضا أو أبورينا أفر كميده 4 حرمات أي حيان أفر كميده حرمات أي حيان معقول مركي إلهي سموينك أرلضا أبوري بلوه إني بقى حيان أفر كلي إني حيان با صورة قلويان أنا تام الديديو إن ماشي كما صار كرو لكن حرماتك وكود جروي يعني إلا حد وبيش كوي تبنات بيش الله تبنات بيش كوات إيه بيش تضبعات السنة كهجري جويان أفرتاس بلوت أيوة حل هذا حرمات اللي هذا مركا عجيب ويا رنتي ولو بيش تضبعات سجارها قران كله وشاق مال جارها معناها إن تاسع الجحس هالكاس الجحس ولا الشهر الحرام وأريلا يابلو ويا رنتي إن والشهر الحرام وطنها والشهر الحرام بشاس تضبط ويان هل بلا جار لو شيء معناه إن على كل حال ما توحن كهذا دونا دي له يراهدو محيتها معجزة ماشان كجرتها iyo waxyaabaha tirada badnaa ee waqtiga la xiriiray iyo kalandarada iyo waxba noocaasa sidee loogu ogaa kana halkan ila soco 10 kan ka horreeyay sameeyay waxaan ku soo bandhigay waxyaabo fara badan oo macluumaad aan ku soo bandhigay laakiin maanta uu ka sii xeel dheer yahay intii horeeto waxaan tiriyay in bil markii loo tiriyo 12 bilood weeyaan waa 1 iyo 2 markii bil la yiraahdo fardi la yiraahdo 1 2 3 4 أنا كنت أقصد دون هدي لها يراد 5 إن 6 7 8 9 10 11 12
12 12kaas meelood waxaa ku jira hal bil weeyaan 9 meeloodna waa 2 bilood iyo wixii ka badan weeyaan marka xikmadda meeshan ku jirtaa waxay tahay kow horta waxaad xisaabinaysaa bal ummadda islaamka hadday u fiirsan lahayd arrintan allah haddii meeshan loo fiirsan lahay wallahi wax badan ayaa la ogaa lahay wax badan oo cilmiyaa la ogaa lahay qaabka qur'aanka aayadihiisa loo rakibay oo isugu xiran yihiin iyo suuradaha nambaradooda keliya intaas keliya haddii lagu fekero cilmi walba oo loo baahan yahay laga helayaa sababta qur'aanka meeshaad ka taabata meesha kale weeyaanba hadda waxaan haynaa 17 aayadood oo keliya 17kaas aayadoodna waxay ka hadlayaan adduun iyo aakhira ka hadlayaan micnaha cilmi walba oo loo baahan yahay laga arki karaa aayadahan suuradahan nambaradooda ayaan isku daray suura baqara 6 meelood ay bilaha iyo bishu kaga jiraan suura maa'ida hal meel suura nisa hal meel kaga jiraan suura maa'ida 2 meelood suura bara 3 meelood suura saba hal meel suuradda iskaleeto oo 46 hal meel kaga jirtaa 58 hal meel kaga jirtaa 65 hal meel kaga jirtaa 97 hal meel kaga jirtaa markaad nambarada isku darto midba isku darto 2 lagu daray 2 lagu sii daray 2 lagu sii daray 2 lagu sii daray 2 sidaas aad u qorto oo plus isticmaasho waxa ku soo baxaya 353 hortiina ay taalaa qof walba ay u furan tahay oo xisaabi karta suurad nambarka ay xisaabinaysaan 2 lagu daray 2 lagu daray 2 qaybta midigtana waa aayad nambarka ma xisaabinaysaan qaybta bidixda ayaad isku daraysaa 353 ku imaanaysaa macnuhu muxuu yahay waa tirada sanadka inta maalmood ay ku jirta weeyaan sanadka lunar calendarka horena wuu soo bandhigay marka waqti badan ku lumay hadii la yiraahdo meeshaas 353 hayso wax kale idil ay ka hadlaysaaba meeshaan waxay u cadli falaysaa wax walba u cadli falaysaaba bal la soco waxaan xisaabinaynaa aayadaha fardiga oo suuradaha macnaha kelida ah macnaha bishu ay keligii tahay ayaan qoraynaa waxa weeyaan aayadaas 185 aayadda ku xigta oo kelida waxa weeyaan 194 aayadda ku xigta ee kelida waxa weeyaan 217 kelida waxaan ka wadaa bishu keli ay tahay oo aysan jamac ahayn aayadda ku sii xigta waxay noqonaysaa suura maa'ida aayadda 2 number 2 ayaan ku darayaa 97 aayadda 97 suura maa'ida ayaduna waa keli weeyaan suura bara aayadan waa aayad cajiiba weeyaan waxa iskula jira jamac iyo fardiya iskula jira ashuhuur iyo shahr ayaa iskula jira meeshaas waa meesha ay ku kala bayraan weeyaan labadiiba way kulansatay suura aayadaas 36 weeyaan aayadda nambarkeedu aayad cajiiba weeyaan waan ku darayaa mid qolo walba way qaadanaysaa hadhow waan arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo suuradda 34 aayadda 12 aan ku darayaa waxaan ku darayaa suura xaqaaf aayadda 15 waa iyaduna keli weeyaan bil keligeeda weeyaan ay ka hadlaysaa aayadda ugu dambaysa waxay noqonaysaa suura qadri aayadda 3 ayay noqonaysaa aayadda 3 ayaan ku darayaa 761 ayay noqonaysaa waxa weeyaan 12kii meelo 12kii aayadood ee xabadda ka hadlaya weeyaan aayad bisha keliya ka hadlaya weeyaan 761 waad haysataa 353 waad haysataa waxaa jiroo kale marka qayb kale oo 800 noqonaysa aan dul maro 197 ka wadaa raalli ahaada waa qaybta oo pluralka macnaha bil 2 bilood iyo wixii ka badan weeyaan alxaju ashhurun macna bilo weeyaan waxaan ku darayaa 226 oo iyaduna ashhurun ah 226 ku dar waxaan ku darayaa 92 shahrayn 2 bilood weeyaan waxaan ku darayaa aayadda 2 ee suura bara waxaan ku darayaa aayadda 5 ee suura bara waxaan ku darayaa aayadda 36 ee suura bara waayo 2 ayaa iskula jirta 2 jamac iyo pluralha iskula jira meeshaan jamac iyo fardi ayaa iskula jira meeshaas oo soo laba laamaysaa taas 36 2 jeer qaadanaysaa macna waxaan ku darayaa aayadda suuradan 38 suura mujaadila oo ah 4 aayad nambarku waa 4 waxaan ku darayaa aayadda 65 suuradda 65 aayadda 4 iyadana waxaan ku darayaa
hal aayad ayaa iga maqan waatan ahaa 234 iga maqan 234 bal qof walba meeshaa ka eeg waa taas ahaa halkaasi kugu taallaa intaas halkaas ka eeg waa kaas ahaa waa halkaa kugu yaalla 8 bilood 9 bilood aan leeyahay ee jamaca ahay waa kuwa halkaa ku yaalla waa kuwaas ahaa intaasoo number ayaad eegaysaa waxaadna arki doontaa inay yihiin bilaha jamaca ah oo macnaha 2 bilood iyo wixii ka badan ah ayaad arki doontaa 800 oo xiran ayay noqdeen marka waxaan haysanaa 800 761 iyo waxaan haysanaa 353 aan haysanaa xisaab kalaan gelinaa marka meeshaan waxaa ku jira oo kaleeto 17 aayadood waxaa ku jira nambaro ilaahay xusaya subxaanahu jalla wacala waxaana weeyaan 4 2 maxay ahaato 4 12 bilood 4 maxay ahaato 10 halkaas ku jirta 30 bilood 40 sannadood 3 bilood iyo 1 xisaabaha iyaga markii la isku soo daro 3 meelood oo min 4 ah waxay noqonayaan 12 tobankaas halkaas ku jirta ugeey waxaad u geysaa suura bara oo ku jirta 12 iyo 4 ka sii horeysa oo halkaan 4 ashhurin ah waxaa la yiraahdaa 16 waxaad ku dartaa shahrayni mutataabicayni shahrayn oo kaleeto oo 2 meelood uga jirta halkaas iyo halkaas uga jirta waxay noqonaysaa 4 waxaad ku dartaa 3 ashhur 30 shahran 30 ayaan ku darayaa isla aayadaas 30 shahranka 40 sana ku jirta qofku markuu 40 sana gaaro mas'uuliyad culus ayaa fuulaysa la socdo sida loo ogaado 40 kana ku daraya 40 macnaha tira la magacaabayo tira ahaan loo magacaabaya ku dhex jirta aayadahan cajiibka marka aayadaha waxaan doonaynaa nambaradaas la magacaabayo ilaahay uu magacaabay subxaanahu jalla wacala aan soo qaadano meeshaana waxaa ku jirta shahrayna waa qortay oo labadii waan qortay 3 bilood halkan ku jirta 3 aan qoranayaa waxaa iigu dambaysa soo qaadanayaa 1 bilood ayaa halkan ku jirta suura qadri 1 tira ah ayaa la xusay 1 kiyaan qaadanayaa halkaasaad ku haysataan 1 iyo 100 iyo 10 iyo 5 oo taas ahaa halkaas idinku yaalaan qof walba wuu baari karaa 4 meelood oo min 3 ah oo 4 ashhurin iyo 10kaas oo 10 ah iyo 16 suura bara aayadda 36 ku jirta oo 12 ilaa 4 ah iyo inta ka dambaysa 2 shahrayn 30 bilood 40 sannadood 3 bilood iyo 1 sannadood exactly 100% waxaan u keenayna waxa weeyaan sidaas ku faahfaahinaya shaki oo dhan meesha inuu ka baxaba totally inuu shaki meesha ka baxaba oo qof walba uu yiraahdo waa xaqiiqsaday waana yaqiinsaday intaas iyo xisaabtii horon haysanay ayaan isku dhufanaynaa markaas waxaan ka helaynaa saacaduhu intay yihiin 24 saac 24 saacadood la sheegaa laakiin sax miya maya sax maahan bala soco waxaan leeyahay intaas waxaan ku dhufanayaa 350 iyo 3 markaas waxaan ku dhufanayaa 800 markaas waxaan ku dhufanayaa 761 waxaan u qaybinayaa number 10 23 saacadood iyo waxa weeyaan 23 saacadood iyo waxa weeyaan xoogaa 24 saacadood oo 30 iyo 8 3.8 la adahay macnaha 3 daqiiqo iyo 8 ilbiriqsi macnaha 8 sakin ayaa ka dhiman 24 saacadood 24 saacadood waxaa ka dhiman 3.8 sakin ayaa ka dhiman 24 saacadood maxay tahay marka 3.8 daanu bal cajiibka meeshan jiro kala fiirshaya 38 haddii laga wareejiyo dhibicdaas laga wareejiyo 38 noqonaysaa meeshan waxaad ku aragtaan 20 meelood ay uga jirtaa laakiin 20 mahna 1 iyo 20 weeyaan taasaan calaamadsaneyn in cidda shuhur 1 iyo 20 meelood weeyaan 1 iyo 20 waxaad ku dartaa 17 aayadood bal cajiibkan fiirsha idinku 1 iyo 20 ku dar 17 38 haddaad point dhex gelido ood fraction ka dhigto waxay noqonaysaa 3 sekin 3 daqiiqo iyo 8 sekin ayay noqonaysaa
boqolkiiba boqolna weeyaan waa 100% saacaddu waxa weeyaan 3 saacadood 56 daqiiqo iyo 4 second weeyaan ama 5 second almost 5 second weeyaan qiyaastii 6 second aan ka wadaa 6 second مثلا waxaan ku darayaa 23.50 iyo 6 lagu daray waxaan leeyahay 24 minus 3.8 24 minus 0.38 wataasaha 23 saacadood iyo waxa weeyaan 62 waxaa ka dhiman 3.8 second 3 minute iyo 8 second ka dhiman halkaas ayaadna ku haystaan fraction ay noqonaysaa taas waad haysataan aan u malaynayaa waxaan gelayaa marka saacaddii saasan ku helnay boqolkiiba boqol weeyaan adduunyadu waxbay sheegtaa waxaa la yidhahdaa waxaa weeyaan 56 daqiiqo 23 saacadood iyo 56 daqiiqo iyo 4 sekin laakiin aniga waxaa iigu siyaadaa 2 sekin ayaa iga soo baxday meeshaan laba macnaha ilbiriqsi oo siyaadaha iga soo baxday oo qaabka adduunyadu hadda isku waafaqsan tahay ka siyaadaha ayaa xisaabtan iga soo baxday okay waxaan leeyahay marka waxaan rabaa inaan helo saacadaha inaan helaan rabaa saacadaha waan helay oo runtii maba dhib badnaba saacadaha waxaa weeyaan 800 lagu dhuftay 10 lagu daray 761 tobanka waxaan ka keenay tobankaas weeyaan waa 10 4 ashhurin waa 10 weeyaan 8761 ayaa sanadkii ku jirta saacadood waana 100% weeyaan correct weeyaan boqolkiiba boqol xataa adduunyadu qaabka u saxiixdo hadda u taqaano sidaan weeyaan sidaanay u taqaana adduunyada maanta sidaas ay u taqaanaa halkaasaana ka helay waxaan soo amaahday maahan waxaan meel kale ka raadshay maahan waxa adduunyada ay ku waalaad halkaas weeyaan waa kaasa meeshaas yaalaanba waxaan rabaa marka inaan helo waxa la yidhaahdo dawga ama maxay ahaato speedka lightka taasaa ugu cajiibsan bala soco waxaan soo helnay 1,115 oo aan ka helnay tiradii 17 aayadood ku dhex jirtay oo xisaabta gaarka ahayd markaas waxaan ku dhufanayaa 761 oo bisha kaliya khusaysa bisha kaligeed markay tahay khusaysa markaas waxaan ku dhufanayaa 353 suuradaha nambaradooda ahay halkan maxaa kaaga muuqda 299,525 almost 526 saddexdaas xaraf ugu dambaysa waxay noqonaysaa fraction ay noqonaysaa marka ku dhawaad waxa weeyaan 299,526 kilometer weeyaan kilometer ay noqonaysaa sakin walba intaas uu xisaab ahaan u helayaa cid igu celi kartaan macnaha xaqiiqo weeyaan tan waa xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana weeyaan okay meeshaan waxaan ka ogaa karnaa cilmi walba ayaan meeshaan ka ogaa karnaa waxaan ka fasiri karnaa aayadaha cajiibka la fasiri waayey suura macaarij ku jira min allahi dil macaarij taxruju almalaa'ikatu waruuxu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu 50,000 sanatin sidoo kaleeto yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma yacruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu 1000 sanatin mima tacuduun iyo aayado kaleeto sidaas oo kaleeto oo sheegaya suura xaj oo kale aayado ku jira ina yawman cinda rabbika ka 1000 sanatin oo kaleeto aayadahaas cajiibka la fasiri waayey halkaan ka fasiri karnaa waa tanaha hal maalin oo u dhiganta 1000 sanadood hal maalin oo u dhiganta 1000 sanadood inaad hesho weeyaan maalintii qaabkii ay ugu dhigmi lahayd 1000 sanadood waana kanaha qaabkaas weeyaan halkaasaan waxaan ku dhufanayaa symbol waxaan ku dhufanayaa daqiiqadan ku dhufanayaa 60 daqiiqaan ku dhufanayaa markaasaan waxaan ku dhufanayaa 23.962 lagu dhuftay waa iska soo yaraysan karaa xisaabtan 100 aan u qaybi karaa ama 100 aan u qaybi karaa lagu dhuftay waxaan haystaa hadda saacadadan haystaa markaasaan waxaan ku dhufanayaa waxaan haystaa saacad maalinaan haystaa waxaan ku dhufanayaa 353 intaanay noqotay sanadkii intaasay noqotay markaas waxaan ku dhufanayaa 10 kunaan ku dhufanaa hal kunaan ku dhufanaa waxaa naga galay fractiona naga galay waa kan ahaa 17 naga gashay calaa kulli xaal
waxay noqonaysaa 1.5 trillion waxaan ku sheega ma garanayo subxaana allahi alcadiim kunka sano ee u dhiganta macnaha halka maalin ee kunka sano u dhigma waa xisaabta dawga weeyaan socodka weeyaan masaafada naftirkeedu intaan inay jirtaan anugu meesha kama saari karo macquul xataa masaafada samaa dunya galaksigan weyn ee adduunyada ee milki weyn la yidhaahdo in masaafadiisu intaan ay la eg tahay macquul weeyaan meesha kama saari karo laakiin waxaan u daynayaa cilmigeeda allahan u daynaya subxaanahu jalla wacala waxaan leeyahay allahu aclam ayaan leeyahay meeshaana xisaabtan iyada ah waxa la xisaabi kara 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo waa 16 jifar weeyaan iyo 17ka zero kasii dambaysa marka waxa wax la xisaabi kara ma runtii wax tiro badan weeyaan haddii aad rabto 50,000 inaad u bedesho oo masalan malaa'igta iyo ruuxdu waxay socdaan 50,000 oo sano macnaha si u dhiganta من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كنتم كل ماشى الدنيا ما ملكيدو وكو اجي هي معناها سماء الدنيا اي كو اكتهي كون سنضوت اما اسبيتك بني ادم كو اي سمي كران هدي حق عمد استعمالا اما هذا اي استعمالا اما wax noocaasa oo soo hada عمد ma soo kara intaas macna hadalku oo soo kara ama taleefanada ama waxyaabaha noocaas ama korontadu ay kun soo karto sekonkiiba 300 oo kun wax dhiman ay soo karaan malaa'igtu waxay soo kartaa 17 milyan iyo xisaab la jirtay soo kartaa halkii sekon 17 milyan iyo dhowr boqol ay soo kartaa malaa'igtu markaad rabto inaad hesho halkii maalin ee kontonka kun u dhigmaysay meeshaas ku dhufanaysaa macnaha waxaad ku dhufanaysaa daqiiqada u bedelaysaa daqiiqada waxa u sii bedelaysaa maxay saacad waxa u bedelaysaa sanad maalinaad u bedelaysaa maalintii sanad u bedelaysaa sanadkaad kontonka ku dhufanaysaa markaas waxay noqonaysaa sekonkiiba 17 milyan iyo wax la jira ayay noqonaysaa waa aad u dheerayaan maasha allah wax la xisaabi kara maaha macnaha 100,000 iyo maaha waa malaayiin ay sekonkii jarayaan marka iyo in kasii badan oo ilaahay ogyahay subxaanahu wa naraahu qariiban ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu anagu waaba nala yar yihiin uu leeyahay allah subxaanahu jalla wa ala waxaas marka intaas ayaan jeclaysanaa soo gudbiyay walaalaha sharafta lahow waxaadna ogaataan inaan haysano dhaxal macnaha dhaxal aan wax la mid ah aysan jirin haddaan waqtiga idinku dheereeyey aad iyo aad idinkaga raali gelinaya walaalayaal waxaan sidaa u yeelana waxa weeyaan meeshan cilmiyo waaweyn ayaa walaalayaal ku jira maalin walbana wax cusub iga soo kordha aniguna waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo wax cilmiyo iga soo kordha haddii ilaahay yiraahdo ilaahay nagu anfaco haddii aan xaq sheegay oo aan runta asiibay ilaahay baa igu waafajiyay subxaanahu wa tacaala haddaan wax khaldayna rabbigayaan cafis weydiisanaya subxaanahu jalla wa ala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh